haddaad ku dhufatid qaybtan hoose ay qoran tahay link device caadiga ay qoran tahay ayaa ku dhufanaya. inta ku dhufan ka hor Chrome-kiisa ayaa sii diyaarsanaysaa. Chrome-tan intaa gasho Gmail-da ku jira mid kamid ah dalbanee, then waxaa qoraysaa web WhatsApp. Assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh. Hawada qiimaha badan oo mar kale Cabdinaasir Technology la ka cusub subscribe saar, like, share, comment intaan matariya. Maantan waxaa isla arkaynaa sidee WhatsApp-kayga computer ugu xiriiri karaa. soo dhawaada marka inta taqaano way taqaanaa, inta aqoonne ha ka faa'iidaysato. walaalka cusubna subscribe noo saar, haddana la joogtana ku mahadsan tahay. awalan sida caadiga ahayd waxaad soo gelisaa mobilka, soo gelisaa saddexda dhibcood ku dhufanaya device link haddana kusii dhufanaysaa. haddaad ku dhufatid qaybtan hoose ay qoran tahay link device caadiga ay qoran tahay ayaa ku dhufanaya. inta ku dhufan ka hor Chrome-ka sii laptop-gaada Chrome-kiisa ayaa sii diyaarsanaysaa. Chrome-tan intaa gasho Gmail-da ku jira mid kamid ah dalbanee, then waxaa qoraysaa web WhatsApp aa qoraysaa. markaa qortid waxaa soo baxaayo qaabkan soo baxaayo. waa sugaysaa marka intuu soo qabsanayo, waa sugaysaa. waa kasaa si automatic ata waa usoo qabsay. waxaa usoo qabsay waa kasaa saacadda ujeedin. waa kasaa usoo qabsay. waa qaybtii oo laptop waaye. kasoo gudub marka waxaa imaataa WhatsApp ku soo laabo, saddexda dhibcood ku dhufso, link device kusii dhufo. haddana sorry laba sabab ay jirto. waa kasaa saacadda kor waxay sheegaysaa 10 daqiiqo. marka ku xireen waxay sheegaysaa active-ka macnaha 10 saac iyo 54. marka waa inta oo keliya. marka isku furasna soo aragtay, sidii la xiriirana waa aragtay. intaan keliya waaye. kusoo dhawo marka YouTube channel-kayga Cabdinaasir Technology. وما سنتين